بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee u dabaaldegaysa usbuuca xurriyadda maalmaha xurriyadda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan gobolada waqooyi iyo maxaan ku raawaa walaalahan reer Djibouti oo 26 iyo 27 u dabaaldegayay maalinta xurriyadda waan u hambalyeynaa dhammaantood. sidoo kale waxaan u hormarinayaa hambalyo munaasabadda soo socota ee 1 Luulyo oo ay Soomaalida meel kastoo ay joogto u dabaaldegi doonto maalintii xurriyadda koonfure maalintii midnimada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intaba. intaas kadib maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood oo aad u waaweyn oo muhiimna xilligan hadda la maraya ah. midda koowaad shalay oo taariikhdu ay ahayd 27 Juun 2020 golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa ka dhacay laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah taariikhda Soomaaliyana muhiim ku ah. midda koowaad waxay ahayd matalaadii gobolka Banaadir ee aqalka sare. midda labaad waxay ahayd hadal jeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. labadaas arrimood waa laba arrimood oo taariikhda muxuu ahay siyaasadda Soomaaliya iyo dawlad dhisidda labadaba laba arrimood oo muhiim u ah. markaan imaado gobolka Banaadir iyo matalaadiisa waxaan rabaa isbuucii la soo dhaafay golaha shacabka waxaa la hor keenay mooshin lagu soo bandhigay matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare oo ku yeelanayo dadaal dheer kadib shalay waxaa la ansixiyey 13 xubnood oo mustaqbalka ku matali doona Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah. dawladda sida Soomaaliya maalinba meel bay soo maraysay, maalin walbana waxbaa ku soo dirsoomay, maalinna waxbaa ka maxay hagaagay. waxaa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senataradii aqalka sare ee markii hore ba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka Banaadir. waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badan oo ay runtii Soomaalinimada ah oo ay ka geysteen. dadaal dheer kadib xildhibaanada aqalka shacabka ayaa ayaguna u guntaday in la meel mariyo arrintaas. mooshinka aan sheegaya ayay qoreen, waxay horgeeyeen floorka baarlamaanka oo laga dooday kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib golaha shacabku wuxuu ku guulaystay in la meel mariyo 13kaas xubnood. waa ilaahay mahadi ha ka gaarto muxuu ahay golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas'uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan. taariikhda dadka reer Banaadirna waa arrin hore u socotay runtii muddo dheer ayaa lagu taamayey arrimahan in ay soo socdaan ay soo dhaqan galaan waana lagu guulaystay. arrintaas waxaan leenahay dadka reer Banaadir waxaan leenahay hambalyo in maxaan ku odaayay ay sidaas sameeyeen. xildhibaanadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. hase yeeshee abaalka dadaalkaas weyn oo ay xildhibaanada galeen oo ay ka dhex galeen golaha shacabka iyo aqalka sare muxuu ahay baarlamaanka in si yar oo raqiis ah dad siyaasadeynaya ay u dafaan oo ay u qaataan macquul ma aha. juhdi dheer oo muddo dheer la soo sameeyey dadka reer Banaadir ay u dul adeegeen, samir iyo dulqaad ay u yeesheen. dadka kale ayaga la mid ah muddo dheer ay dul qaadan waayeen oo mar horeba ay ku carareen amuurahooda, laakiin ayagu ay muddo dheer ka soo dul qaateen ayay ku timid arrintaas. marka waxaan leeyahay arrintaas waa hambalyo bogaadin dadka reer Banaadir iyo xildhibaanada labada aqal ee maxaan ku raadayay baarlamaanka federaalka Soomaaliya intaba aad iyo aad ayaan u hambalyeynaa. waa guul u soo hoyatay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir. hase yeeshee waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo waxa dhiman. taasi waa guul la gaaray aad iyo aad u habboon qiimaheeda leh, laakiin waxa dhiman inaan iftiimiyo si aan u sii wadno dadaalkeenna oo aanan u dhihin wixii la rabay waa la helay. sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aqalka sare wuxuu mathalaa dawlad goboleedyada ama dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu mathalaa nidaamka federaalka ah ayuu ku salaysan yahay. sidaa daraaddeed baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee degan gobolka
si matalaadda aqalka sare ay u noqoto mid dhaba. maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas-uuliyaddiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqaynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin oo taagan. markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. baahida ugu weyn ee dadka reer banaadir ay qabaanna waa maamulkaas, matalaadda siyaasiga ah bas ma ahan. dadka reer banaadirna maamulkaas markay dhistaan si ay ugu hoos noolaadaan, hoggaanna ay raalli ahaanshooda ku soo dhisteen oo uga mid noqdaan nidaamka iyo saabaanka federaalka ah ee dastuurka ku-meelgaarka uu tilmaamayo. markaas ayaa muxuu ahay hawshu alla dhigi karaa meel ay la siman yihiin dadka intiisa kale iyo gobollada iyo dawladaha ayay ugu dambayntii waxaa kaloo dadka reer banaadir u rajaynayaa inaan indhahooda laga sii jeedin qadiyadda dawlad dhisidda ee dadka gobolka banaadir degan qiimaha badan ugu fadhido. dadkaani maalintii dawladdii ugu horraysay ee ku-meelgaarka ee dalka loo sameeyey 2000 ilaa maanta ayay garab taagnaayeen dawlad dhisidda dalka Soomaaliya. xoogay ku bixiyeen, xoolo aad u baran ay ku bixiyaan, welina ay ku bixiyaan si dalka Soomaaliya oo dawlad u yeesho. marka waxaan leeyahay qadiyadaas kale oo muhiimka ah oo qiimahaas badan ugu fadhida dadka reer banaadir inaanay ka ilduufin oo aan inta muxuu ahaayey indha sarcaad kale meel kale nal looga shido aanay ka mashquulin ayaan muxuu ahaayey ayagana aan ugu baaqaya. qadiyadaas oo maanta taagan meel isgoys ah oo khatar ah oo haddii jid qaldan ay qaado dhibaato badan ay ka imaan karto, haddii jid saxan ay qaadana dadku ay ku naaloon doonaan Soomaaliyoo dhan guud ahaan, gaar ahaan maxaan ku idhahdaa dadka ku nool gobolka banaadir. qadiyadaas oo maanta taagan isgoys khatar ah kadib markii hoggaanka hadda talada haayo uu si bareera u diiday 2 arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah. qadiyadda isgoys khatar ay taagantahay mugaan leenahay waxay ku salaysan tahay 2 arrimood. waxaa si aan qarsoodi lahayn u diiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu si qarsoodi aan lahayn u diidan yahay nidaamka federaalka ee Soomaalida cusub ku heshiisay inay dib ugu dhisato dawladnimadooda. waana lahayaa markhaatiyaasha arrintaa ka caddaynaya. qabashada doorasho heer qaran waxaa kaloo diidan yahay qabasho doorasho heer qaran ah oo heshiis lagu wada yahay si loo helo kalsoonida heerka labaad ee federaalka ee ah dawlad goboleedyada iyo dadka ku nool in ayadana muxuu ahay ay waxaysan yihiin. labadaas arrimood marka waa 2 arrimood oo maanta Soomaaliya meesha isgoyska ay taagan tahay go'aanka laga gaaro ay ku leexi karto wadadii saxdeed. doorashooyinka qaran markii loo yimaado waxaa la joogaa waqtigii ay dhici lahayd doorasho qaran ee xilli xileedka hay'adaha dastuuriga ah ee heer federaal. shalay oo ay taariikhdu 27 bishii Juun 2020 waxaa golaha shacabka hadal jeedin ka sameeyay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwe Xaliime Ismaaciil Ibraahim. hadal jeedinta guddiga oo muddo laga war dhowrayay la sugayay waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka Soomaaliyeed ay yiraahdeen tanitaan u dhiganayba ma ahaba. wixii laga sugayay ama looga fadhiyay ama loo ikmaday oo maxaan ku raad dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen. laana lagama sugaynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka uu guddigii madaxa bannaanay oo dastuuriga ahay oo ummadda Soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka loo yimaadaan. dhibaato waa dalka waa ka jirtaa, wax qabadkooda wuu gaabnaan karaa, laakiin waxa dhabtaa ee jiro in dadku u sheegaan iyo wadada la qaadayo ayay ahayd. muddo 3 sano ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda. annaga diyaar ay naga tahay doorashada, annaga farsamo yaqaanaan nahay, siyaasiyiin miin doorashada waa naga diyaar. hase yeeshee hadal jeedintii guddiga waxaa ka soo baxday inay ummadda Soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldaan kala dhaceen ay ummadda u soo bandhigeen inay ruux dheeraysi u sameynayaan hoggaan muddo 4 sano ah wax ka qaban waayay doorashada dalka, isla markaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyay burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay. sidoo kale
هذا الجيدين تجدّي وحال لقد هنكرا مدة كردين رمان مدة كردين مكله ما مدة هذا أي شيئين أو سجال بلوضو سنة سنة محن كوير برسانة معها وحالقس ده كرا مدة كردين مكله أي دبادة قوة تا مدة كردين تسكوبات شري جدّي أي هذا الجيدين تود كسر بندقان مدة كردين تاس مدحوينها أي حكومة دي سوحي مدة دار كفانا إني وذا الجوجين أنا جبوا وذا الجوجني اسمه قبصن اسمه الدرر اسمه كان دحين هذا دت صاحبه اسمه شاهي عبد ما هنا وحقبض أمته كربتي حلا الله إكمدي مسؤولية الله ديبي هولا اللي جسوي واسل الجوجني أي محوها مدة أفر سنة وحوها هالهيسكا إيو محوها مدحض الدلكة وقامساي أي كواسة يا شيء مالين كمدة مدة داس مدحوينه كم هذا دورش أفر سنة سيد أمانيس وحلقي مالين انت dadka soo istaaga madaxweynuhu doorasho way dhacaysaa waqtigaas ay dhacaysaa doorasho noocaas ah suurtagal oo qaba karna sidaas ay u dhacaysaa saasa loo maamulaya qawaaniinteeda waa sidaas kaasa lagu dhaqma maalin inta umada soo istaagna madaxweynuhuna waa qofka umada Soomaaliyeed caleema saaratay oo la doortay oo mas'uul ka ah sida ku cad dastuurka ilaaliyaha constitution ilaaliyaha dastuurka inuu yahay lagu aaminay inuu dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya umada ku heshiisay inuu u ilaaliyo lagu aaminay waa soo shalay marka maadaama madaxweynuhu meeshaas uu istaago oo sidaas ahayd guddiga waa hadal jeedintiisa shalay soo maaha afkiisa afan ahayn oo kororsiimo loogu dalbay soo maaha madaxweynaha asugu waa kari waay waa dhihi waay war suurtagal maaha doorasho ma qaban karna asbaabtan daraadeed waqtigaanaan u baahnasaan lahayn marka afkiisa afan ahayn ayaa shalay loogu raadiyay ama loogu sheegay in loogu hadlay in muddo kordhin oo ay u baahan tahay oo guddiga madaxa bannaan nama dhihin madaxweynaha iyo dhammaan hay'adaha dastuuriga ah waa madaxweynaha waa labada aqal ee baarlamaanka iyo guddoonkooda 4 sano howl doorasho maalinna ma qabanin maalinna sooma hadal qaadin laakiin doorasho way qaban karaan haddii loo kordhiyo muddo xileedkooda ku dhawaad sanad ama in ka badan 4 sano oo sii dhamaanayso qofkii wax qabad waaba halkiisa xataa ka hadli waayay doorashada iyo xataa asbaabta oo muxuu ahay loo dhici weyday in maanta aan ay guddiga inta hor yimaadaan ay noo sheegaan dalka ilan asaag hoggaankaasa mas'uulka ah dawladda xukuumadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ee ka mas'uulka ah meeshaasayna joogtaa inay maanta ka xishoo waayaan dadka inay hor yimaadaan ay dhahaan madaxweynuhuna uu soo adeegsado uu dhaho saas hal ii dhaho taasi waa kaaf iyo kala dheeri wixii ummaddu ay u dhiganaysay ama sugaysay midna ma aha hadal jeentida guddiga waxaa kale oo ku cad muddo kordhin hoosta ku wadata muddo kordhino kale taas waxaa daliil u ah guddiga waxay ku andacoodeen ama ka muuqata hadal jeedintooda asbaabihii keentay dib u dhaca oo ay ugu horeyso hoggaankii iyo hay'adihii ay u tirinayeen dib u dhaca in ay weli ka sugayaan wixii shalay ay ka waayeen 4 sano wixii ay ka waayeen inay 9 bilood ama sanad iyo jarjar uga heli karaan inay rajo ka sii qabaan waa arin muxuu ahay aan runtii ay taagan tahay allow runaya ku sheego hoggaanka iyo xukuumadda laga dhir sugayo soo ma aha kuwii tan iyo markii ay talada yimaadeen khilaaf iyo burburin ku waday dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah maalinta yimaadeen day 1 waxay la koonsadeen federaalka in la kala furfuro la kala jijibiyo la kala burburiyo dadka Soomaaliyeedna maanta mas'uuliyadda in badan oo kamid ah waxa haya hay'adaha federaalka ee localka ee jira marka hay'adihii dawliga ah ee dadku ay muxuu ahay meelihii dadku joogay ka talinayay maalintii ugu horeysayba oo yimaadeenba waxay ku wadeen sidii loo kala furfuri lahaay loo kala burburin lahaay maalin mid loo ceelay madaxweynuhu hore u ballan qaaday inaysan jiri doonin wax muddo kororsi ah way duuban tahay waa on the record waa la dhageysan karaa doorasho kordhin ma dhacayso ma imaanayso ma waxaynayso madaxweynuhu intaas uu noo ballan qaado noo sheegay gaar ahaan waqtigii uu kursiga raadinayay iyo markii uu helayba hadalkaas uu aad iyo aad u
ugu celili taasoo uu ku tilmaamay inay madaxweynuhu markuu ka hadlayay kororsimada wuxuu ku tilmaamay inay luminayso kalsoonida lagu qabo dawladnimada sidaas daraaddeed wax la aqbali kara maaha inuu maanta noogu soo dulgabado guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo raadinaya muddo kororsi oo asagu xataa aanu noo sharaxaynin noo sheegaynin noo waxaynaynin dalkaanina madaxda loo igmaday ayaa mas-uulka ah guddiga doorashadu waa farsamo yaqaano waaye waajibaadkoodana sharcigoodu ku tilmaaman yahay wax badan oon sharciga aan waafaqsanayna shalay way ka mid ahayd sidii aan horay u soo sheegay fidnada iyo qalalaasaha maanta ka dhex taagan labada aqal ee baarlamaanka bal warkayga si fiican u labada aqal ee baarlamaanka waxaa aad uga muuqda faraha madaxweynaha oo shalay ugu dambeysay aqalka sare ee baarlamaanka koor muu yeelan waayey xildhibaano senataro laga maqnaysiiyey oo imaan waayey daraaddeed intaas waa inta runtii dhabta ah oo meesha ka taagan 4 sano sii dhammaanayso ma dhicin in haddana maxaan ku yiraahdaa sidaan dawladdu ay ayadoon qofna kala tashan waxna yeelin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka siyaasadda dalka iyo jaangooyintooda looma saarin guddiga doorashada laba sharci ay leeyihiin sharciga ayaga lagu dhisay iyo sharciga doorashooyinka oo midna inay dhowraan midna inay dhaqan geliyaan laga rabo waxa shalay ay ku hadleen oo ay ka mid tahay labada nooc ee doorashada oo midna 9 bilood ay u baahan tahay ay yiraahdeen midna sanad iyo jarjaray u baahan tahay midda 9 bilood ay u baahdeen oo la yiraahdo afka qalaad waxa lagu yiraahdaa manual registration qof socda imaanayo maanta la diiwaan gelinaya warqadda codaynta la siinaya qada farta loo gelinaya saasay doorasho ku dhacay waxay dhahan taasaan waxa u baahnaa 9 bilood taasna anigu waxaan aaminsanahay usbuuca lagu qaban karaa usbuuca dambaa lagu qaban karaa haddii bal in la qabto oo muxuu ay ka go'an tahay midda kale midaas marka sharciga muwaafaqsana sharciga doorashooyinka si cad oo aan mugdi ku jirin wuxuu u tilmaamayaa registration iyo habka registrationka iyo sida loo register gareynaa codbixiyaasha sharciga qeexay labadii sharci ee lagu ay mas'uulka ka ahayn mid kamida ayagoo baalmarsan inay golahii shacabka ee sharciyada u agmaday inta soo hor istaagaan wax ay ka shaqeynayeen dadka Soomaaliyeed u deynaya marka aan leeyahay sababta keenaysa waa sababtaas baaqan raba marka halkan inaan ka jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan ugu baaqayaa inuu dhagal laab u daloola inuu ku dhageysto baaqa halkan ka jeedinayo maanta waqti ayaa horay dalka iyo dadka uga soo lumay ee fadlan waxaan leeyahay mid kale ha ka sii lumin waqtiga soo lumay wax lagu qaban karay in la qabta ay ahayd waxa la qabanayo waliba ay cadaayeen liiqina la qaban waay mid kale haddana waxba lagu qaban doonin in ummadda lagu sii hodo sax ma aha waqtiga yar ee ka haray xileedkaaga mudana madaxweyne hal arin ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ila haboon kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arrimooda u furan yaan ugu baaqayaa gunaanad walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan leeyahay waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa inaan idin xusuusiyo waa muhiim arintan inaan idin xasuusiyo doorashadii dimuqraadiga ee ugu dambeysay ee dalkan ka dhacday ee 1969 waqti dadka hadda maanta madashan meeshan taagan goobtan taagan oo aanay joogin ama badankoodu aanay joogin waxay ahayd doorashadii dimuqraadiga ee ugu dambeysay dalka ka dhacday cilada doorashadaas ay lahayd awgeed iyo cawaaqibkii ka yimiday oo xukunkii dimuqraadiga ahaayoo dhan oo manguuray oo meel kala degay dadka Soomaaliyeed waxay ku qaadatay 50 sano maanta maru haysaa cawaaqibka ka dhashay inay la tacaalo hayaan welina ay wax badan u dhiman yihiin dadkana maanta waxay aamineen inay dimuqraadiyad iyo doorasho
iyo sanduuqa in la aado madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan khayre iyo xukuumadooda waxaan leeyahay waddo kale oo haddana muddo kale in ay dadka Soomaaliyeed ku dhumaan ha ku hagina waddada saxda ahayd dadka ku toosiya qaladaadka dhacay awgood waxaa dalkan iyo dadkiisa ay u horseeday mahadho siyaasadeed oo ilaa hadda taagan sidaas daraaddeed Soomaaliya ma xamili karto qalad kale oo taariikhi ah oo dhaca xilli ay ka soo bogsanayso jaawareer muddo dheer ay la tacaalaysay Soomaaliya sidaas daraaddeed qofka ama kooxda maanta diidan wada tashi siyaasadeed oo lagu gaarayo heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah ee ku saabsan doorashada qaran waa qaran dumis waana dawladiid qofkaasaa qaran dumis ah dawladiidna ah maanta ha laga wada tashado dalka doorashadiisa iyo dawladnimadiisa qofka shaki gelinayo ama kooxda gelinayso waa kooxda maxaan ku yiraahdaa qaran dumiska ah ama maxaan ku yiraahdaa dawladiidka ah ee maanta Soomaaliya ka jirta aan ku soo gabagabeeyo waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ugu duceynayaa in Ilaahay tubta toosan iyo talada toosan waafajiyo Soomaali badbaado nabad hor u socday u baahan tahay madaxweynaheena talada toosan Allah tusaan leena waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinka aan ka hadlayay muxuu ahaa kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqal taagayo ma aha mid ku kooban isaga oo kaliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka madaxweynaha la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka golaha shacabka kororsiimo xilli xilaadka aqalka sare kororsiimo guddiga madaxa bannaan ee qaranka xilli xilaadka guddiyo kale oo badan oo dalka ka jiro waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan xasuusin u sheego guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xilligiisa uu dhamaanaya sanadka soo socda bartamihiisa iyo ka hor u dhamaanaya sharciga guddigaas lagu dhisayna wuxuu qeexayaa markuu xilligu dhamaado guddigaas sida uu noqonayo soo noqoshadiisa in loo kordhi karo xubnaha ku jira inay soo noqdaan kulli qaanuunkaas tilmaamay inuu guddigu maanta marka keensado mashruuc hawl qabad oo kaas ka sii dambeeyo waqtigaas ka sii dambeeyo waa qabanaynaa ay leeyihiin hab maxaan ku yiraahdaa diiwaan gelin oo qaanuunka aanu tilmaamin lagama sugaynin ayaga marna siyaasiyiinta waa laga sugaay inay muxuu ahay xeelad siyaasadeed iyo meelo ay ku laalaabtaan laakiin guddiga dastuuriga ah lagama sugayn madaxweynuhuna qaribaadda oo hay'adaha dawladda iyo dawladnimada oo qaribay ka mid tahay inuu guddiga ka yeersiyo hadallada shalay iyo warbixinta shalay ay keeneen dalka waxaan la aqbali doonin xilliga xilaadka dadka Soomaaliyeed ay u igmadeen hay'adaha dastuuriga hadday dhamaato lama aqbali doono jiritaankooda shacabkuna ma aqbali doonaan adduunyaduna ma aqbali doonto yaan la geeynin Soomaaliya firaaq dastuuri ayaan laga abuurin ma dhacayso horena uma soo dhicin intii aan soo jirnay markasta waxaan ay dhimaadaan oo isku day sidaan oo kale u yimaadna fool xumo iyo qaab darro iyo maxaan ku raad laab iyo Soomaaliya oo magaceedu xumaaday iyo madax badan oo ku ceebowda ayaa ka dhalan jirtay war meeshaas wada ma jirto horeyna waa u sheegnay dhowr marna waa ku celcelinay wada ma jirta dhinacaas wadada waxay jirtaa aan leeyahay hoggaanka dalka hoos ha u soo dagaano ha u yimaadino saamilayda siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan muxuu ahaay dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka xisbiyada siyaasadeed ee sharciga ah bulshada rayidka iyo intii kale looga maarmin oo dhan qof kasto aan looga maarmin nasabkiisa iyo meeshiisa in loogu tago talada loogu geeyo ay mudan yihiin waxaan rabaa mar kale ilaahay waxaan ka baryayaa in tubta toosan dhammaanteen iyo talada toosan uu nawaafajiyo Soomaaliyana uu dhibaatada saaran oo alla ka qaado laakiin ilaahay annagu noo sheegay sida dhibka looga baxay inaan yeelnaan laga rabaa dadka Soomaaliyeed qulubtoodana Allah isku soo duwo xurriyada 60 guuradana mar kale waxaan leeyahay hambalyo wali waa soo taaganahay waa u jeednaa waxasan waana ku taaganahay inaan codkeena kor u qaadno waxasan waana la gaarayaa dadka Soomaaliyeedna waxasan yaanay ka aamusin
codkooda kor ha ugu qaadaanaan leenahay meel kastoo ay joogaan ayagoo codkooda kor u qaadayo waa ka nimiday xilligii laysdilayey oo madaaficda iyo xabadaha iyo balaayada laysku ridaya waa ka nimiday dhiig la daadiyo shabaabaa noogu filan yaanan gadaal loo celinin dadkaani waa ka yimideen heerkii ay aaminsanaayeen awoodda siyaasadeed in qoray iyo qarax lagu tegi karo waxay u yimaadeen heer ay aaminsanyiin awoodda siyaasadeed cod iyo sanduuqa in lagu tegi karo yaan la tusin oo la dhihin cod sanduuqa kuma tegi kartide qorayaad ku joogi kartaa ama ku bixi kartaa yaan dadka la tusin aan leenahay mana dadkeennuna waa ka koreen si gaara mar kale waxaan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa dadka reer banaadir wixii aad muddo dheer ku haminayseen albaabkeediyaa la furay waxaan si gaara mar kale ayagana u hambalyaynayaa xildhibaanada labada aqal iyo raggii gaar ahaan u istaagay dadka ka muuqday qadiyadda gobolka banaadir oo uu ka mid yahay xildhibaan cabdulqaadir cosable cali iyo maxaan ku idhahdaa xildhibaanada kale oo faraha badan oo dhammaantood har iyo habeen usoo taagnaay sidii qadiyadda gobolka banaadir waxaan sidoo kale ayagana aan u hambalyaynayaa odayaashii dhaqanka iyo dadkii usoo taagnaay laakiin hawshu waa meesheedii hadday dadaalkeedii iyo muhiimaddeedii meeshii ay ugu mudneed hadday taagan tahay waan u wada istaagaynaa waanan gaaraynaa maalin dadka gobolka banaadir ku nool ay dhisteen maamul ayagu ay leeyihiin oo ay uga qayb galaan nidaamka federaalka ah aad iyo aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi